nasiib darraa in gacanka hadal lagu raadiyo xalka lagu raadiyo kuwa u haysta hadday dhahaan ajnabigu ha ka baxo kuwa u haysta hadday hay-adaha gawaaridooda qaadaan iyo inay muuse bixi wax yeelayaan waxaan u xaqiijinayaa maatiday wax yeelayaan inay muuse taani yeelin ciddii siyaasad rabta intaasoo jeer baan dhacay haddana waan ogolaaday kursiga laguma helo fariidnimo kursiga laguma helo reer ilaahay baa bixiya marti sharafta magacay doontaan iyo darajaday doonaan ha hayeene iyo guddiga jaamacadda iyo cid kastoo qayb ka qaadatay xafladdan quruxda badan dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fakar kastoo wanaagsan cid baa curisa ibraahim barre nuur ilaahay waxaan uga baryaa jannati firdows ficilkiisina waxaan oo dhaqaaqayba waxaan ilaahay ka baryaa inuu noqdo ficil jiilal miro wanaagsan oo lagu farxa dhalaa guddiga jaamacaddana waxaan u rajaynayaa oo ka miro dhaliyey fakarka inay higsadaan meel sare caalamka guddigan sida la ii sheegay qurba joog caalamka dowladaha ugu waaweyn jooga weeye marka higsigaa waa inaanay joojin cid kastoo ka qayb qaadatay ilaa maalintii dhagaxa la dhisay ilaa maantana waxaan leeyahay hambalyo laakiin dagaalkii ma joogsan maantay oo daaha laga furay jaamacadda waa maalintii koowaad oo ay bilaabmayso shaqadii dhabta ahayd waa maalintii koowaad ee jaamacaddu u baahan tahay hiilkii dhabtaha sida gaarigu ku dhaqaaqo waxaan soo jeedinayaa anigu oo xafladaha noocan oo kale ah badi laga curiyaa in qof kasta ee meeshaa yimid jaamacaddaani hiil bay u baahan tahay mushkilo maahan $100 haysid mushkilo maahan 700 ee qof arday ah aad sanadka dhan ka bixisid mushkilo maahan shiidaalka aad awoodid ee fuustada aad siisid waxaan soo jeedinayaa qofna inaanu meesha ka tegin isagoon saxiixin telefoonkiisa iyo wixii itaalkiisa ee uu ku biiri kara jaamacadda inay dhaqaaqdo nasiib darro anigu waxaan jeclaa in laygu bilaabo waayo waxaan rabay saaxiibka cabdi faarax dahabshiil mustafa telesom bangiga inay marka horeba iyaku ku dhawaaqaan oo na dhiiri geliyaan maartay jaamacadda inay ay bilaabaan haddana waxay yaraadeen ballan bay qaadeen guddiga jaamacadda waxaan ku dhiiri gelinayaa inay ka daba tagaan oo ballantaas midho dhalkeedii ay sameeyaan annaku waxaan isku tirinaa reer garadag waayo dee guddoomiye ku-xigeenka ururku waa khadar cilmi barre sidaa itaalkeegu haba yaraado laakiin waxaan bixinaynaa 7 arday oo midkiiba sanadan ka bixinayno 7 arday waa $5,000 waxaana jeclahay mas-uul dambe oo halkaas soo istaaga saaxiibka xasan gafaadhaa joogo dowladdu waa horena uga qayb qaadatay haddana waa inuu ku dhawaaqaa inta maaragtay halkaa waxaa fadhiya waxaan jeclahay hadal waa la hadlay wixii ka dambeeya hadal ma jiro waa in la dhigaa waxa la hayo taas baan ku rajaynayaa ragga oo dhan maaragtay loo habeeyo bulshadana waxaan ka codsanayaa qof walbaba ka 100 sheega iyo ka wax walba sheegaba in loo sacabiyo oo la dhiiri geliyo jaamacadda maanta in looga tago wax wanaagsan waxaan ka baxayaa sidaad ogsoontiin caalamkii maanta ito waa daala dhacaya dagaalo sokeeye ee dunida meel walba ka iyo dagaalo dawlado waaweyn ayaa ka dhacaya dal caalamka waxa soo maray xanuuna aad iyo aad u aafeeyay dhaqaalihiisa iyo dhibaatadiisa Soomaaliland kamid bay tahay caalamka waxa haddana soo maray dagaalo hadda wali ka socda gobolladeena qaar kamida bini aadamku inuu iskhilaafo oo wax kala tawdo waa wax abuurisiisa kamida laakiin waxaa nasiib darraa in gacanka hadal lagu raadiyo xalka lagu raadiyo haddii gacanka hadal wax lagu gaarayo waxa kaliya lagu helaa waxa weeye gacanka hadal waa burbur weeye bulshadaani maanta iyada la daala dhacaysa maanta waxay la daala dhacaysaa nolol adag dhaqaale xumi iyo dhan bay la daala dhacaysaa ninkii ka dhaxaya maaha maalintii uu gacanka hadal ku raadin lahaa tabashadiisa ku raadin lahaa
waxaan kale oo maaragtay oranayaa kuwa u haysta hadday dhahaan ajnabigu ha ka baxo kuwa u haysta hadday hay'adaha gawaaridooda qaadaan kuwa u haysta hadday dhahaan mudaarada la waxeeyo inay Muuse bixi wax yeelayaan waxaan u xaqiijinayaa maatide wax yeelayaan inay Muuse taani yeelay waxaan leeyahay miirka soo noqdo aayad quraan waxay tiraahdaa war ka baqa qaybini kamida fidnada ay wado inay intiina kalena ka baxsanayn beeshan ballaaran ee habar jeclo gaar baan ula hadlayaa sokeeye weeye wanaag ma yimaado haddaan loo socon tala ma timaado haddaan loo dhafrin waa inaad ka kacdaan oo arrintan aad xal gelisaan intaan ay gaarin meel fog oo waxba laga qaban karin intaan ay gaarin waa inaad ka kacdaan halkan horteeda waxaan ku arkayaa salaadiin fara badan ceeb bay idinku tahay inaad maanta halkan fadhidaan iyadoo dalkii qiiqayo iyadoo horey maaragtay waxyaalo kale u gubanayo halkan siyaasiin fara badan baa jirta waxaan leenahay waa inaan ka kacnaa sidii dabka masiibada loo baktin lahaa waa in la baktiyaa cadawgeena ku farxaya dhexdeena inay dhibaato dhacdo waa in la baktiyaa waxaan leeyahay qof kasta wax tabanaya xaq baa leedahay laakiin bulshadu maanta ma qaadi karto gacan ka hadal ma qaadi karto bulshadu ma qaadi karto maanta shacbigana waxaan leeyahay dhammaantood gees ka gees waa inaad midnimadiina iyo nabadgelyadiina iyo wadajirkiina ilaashataan koox caraysan ha u kicinina yaan la isku kindirin baan leeyahay yaan xumaata dhexdiina laga samayn walaalayaal waxaan leeyahay ciddii siyaasad rabta ciddii anuguba damaaci baan leeyahay intaasoo jeer baan dhacay haddana waan ogolaaday waxaan leeyahay kursiga laguma helo fariidnimo kursiga laguma helo caqli kursiga laguma helo darajo kursiga laguma helo reer ilaahay baa bixiya qofku ilaahay u gartana si fudud baa u saaraya aayad quraan ku yiraahdo anaa la kursiga anaana bixinaya ciidan doonana saara wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh asharku ku yaaliyo cilmigo la dhuuxa dugsiga hoose dhexe iyo qaybta barbaarinta ubadka ee KG-ga Damal Primary and KG School cilmiga ahdooga iyo daruuriga helaaco qof darsoo helaabaan darajiyo wanaag loo dunidaynu joogniyo daarta aakhiraad buu aadmiga u daneeyaa qofkii daalacdaaya kii dhigaa duruusta ugu mudan dadweynaha dugsiga hoose dhexe iyo qaybta KG-ga ee Damal waa iskuul dhexe daada hoose dhigatiyo doc barbaarin KG sidii malabka doocaan aqoontooda aysaa loo daraa carruurto waa degaan qurxoon oo barayaasha daadihin digriyay ku haystaan duruustay dhigaanoo dan la helay inuu yahay aragga daliilu ah dugsiga hoose dhexe iyo qaybta barbaarinta ubadka KG-ga ee Damal waxaa lagaga furay deegaanka Xeedho agagaarka cisbitaalka Sahan oo ay dadweynaha iyo ubadkuba baahi weyn u qabeen dugsiga manhajkiisu waa manhajka Somaliland waxa uu dhameystiran adeegyadii waxbarashada waxana uu ku yaala deegaan ku habboon waxbarashada waxa diyaar ku ah barayaal khibrad iyo aqoon dheer u leh duruusta ay bixinayaan dugsigu sanad dugsiyeedka waxa uu qaadanayaa arday iyo fasalo cusub qaybta hoose qaybta dhexe iyo qaybta KG-ga isqoristu way socotaa hore u gaadh dugsiga Damal oo ku yaala Xeedho agagaarka cisbitaalka San kala xidhi telefoonada qoraalkoodu ku muuqanayo ballanteenu waa Damal Primary and KG School.